muuqaalkan waxaan rabaa inaan idinkula wadaago FBI-da Mareykanka oo mar kale lacag abaalmarin ah dul dhigtay nin Soomaali ah oo looga shakisan yahay in uu ku lug lahaa kiiskii Feeding Our Future isla markaana loo malaynayo hadda dalka Soomaaliya in uu ku nool yahay. lacagtaasi loo ballan qaaday qofkii soo sheega halka uu ku sugan yahay ama soo qabashadiisa gacan ka geysta ilaa iyo intay la eg tahay waan idinla wadaagaya. dagaalkii Iiraan iyo Mareykanka oo sii xoogeysanaya, Mareykanka oo xalay mar kale duqeeyay meelo kala duwan oo militariga Iiraan ay leeyihiin, Iiraan oo iyaduna ka jawaabtay. laakiin arrinta la yaab kale waxay tahay in diyaarado drone ah oo casri ah oo ilaa iyo 30 gaaraya Iiraan ay Mareykanka ka soo riday 1 bilyan lacag ka badan ayayna joogaan. wasaaradda gaashaandhigga ee Mareykanka hadda qaab kale ayay raadinayaan maadaama diyaaradahaasi faraha badan ee drone-ka ah ay dowladda Iiraan ay soo riday. sidoo kale waxaan rabaa inaan idinla wadaago maxay tahay sababta madaxweyne Trump diyaaradii Air Force One oo dhowaan dowladda Qatar ay siisay madaxweyne Trump oo shirka isbahaysiga NATO ee Turkiga ka dhacay uu ku tagay, sababta uusan Turkiga markii uu ka soo baxay diyaaradaasi u soo raacin oo tii hore uu iska dhigay ee Air Force One oo u soo raacay, tan cusubna Ingiriiska la geeyay kadibna madaxweynuhu Ingiriiska midii hore intuu ku tagay tan cusub uu uga soo raaco Mareykanka uu ku yimid. sababtaasi maxay tahay? Trump ma wuxuu ka cabsaday Iiraan inay soo rido, mase sababta isagu uu sheegayo oo ah in ciidamada Mareykanka ee saldhigyada Yurub jooga iyo qoysaskooda in la soo tuso diyaaradan cusub ayay ujeedadu ahayd, mase arrin kale ayaa jirta? arrintaasina sidoo kale waxaan ognahay bishii hore in FBI-da Mareykanka iyo wasaaradda cadaaladda ee Mareykanka ay bilaabeen inay soo bandhigaan liiska dadka looga shakisan yahay musuqmaasuqa, kuwaasi oo Mareykanka ka baxsaday caalamka wadamo kala duwanna jooga. arrintaasi waxa ay wasaaradda cadaaladda iyo FBI-duba ay bilaabeen 4tii bishii hore ee June ayay ku dhawaaqeen 8 qof liiskooda ayay soo bandhigeen, magacyadooda, lacagta lagu eedeynayo iyo sidoo kale meelaha loo malaynayo inay ku dhuumaaleysanayaan. isla markiiba FBI-da iyo waliba Interpol oo wada shaqeynaya iyo sirdoonka wadamada kale waxaa jirtay in Philippines laga soo qabtay nin ku dhuumaaleysanayay, Turkiga mid laga soo qabtay, isla markaana nin Soomaali oo Saciid Cabdullaahi Ereg la yiraahdo uu isaguna isi soo dhiibay oo 10kii bishii la soo dhaafay Mareykanka uu yimid, FBI-duna ay la socotay markii uu Kenya ka soo baxayay ilaa iyo sidoo kalena uu transit ku ahaa Ingiriiska. maxkamadiisa ugu horeysana bisha 9aad ee September ayay noqon doontaa. waxaa sidoo kale jirtay in hadda 25kii bishan Cabdikariin Iidle oo isaguna la taliyaha koobaad haweeneydii Amy Bag ee madax ka ahayd ururkii Feeding Our Future eena u ahaa in isagana laga soo qabtay magaalada Muqdisho walow weli Mareykanka aan la keenin kadib markii FBI-da Mareykanka iyo hay'adda sirdoonka ee Soomaaliya ee NISA ay iska kaashadeen. marka FBI-du il ayay ka arkeen inay soo bandhigaan liiska dadka looga shakisan yahay musuqmaasuqa, isla markaana sidoo kalena baxsad ka ah Mareykanka oo wadamo kala tagay. FBI-du shalay waxay ku dhawaaqday ninka la yiraahdo Fahad Maxamed Nuur oo 42 jir ah, waxayna dul dhigtay lacag gaaraysa $150,000 qofkii soo sheega halka uu ku dhuumaaleysanayo, soo qabashadiisana gacan ka geysta. FBI-du waxay sheegtay ninkaasi waa muwaadin Mareykana, isla markaana waxa uu xiriir la leeyahay Soomaaliya, kolley family ayaa u jooga, waxaana loo malaynayaa in Soomaaliya meel kamida uu ku dhuumaaleysanayo. waxa uu kamid ahaa 79kii qof ee dacwadaha lagu soo ogay kiiskii Feeding Our Future oo lacagta 300 milyan xilligii coronavirus-ka loogu talagalay in caruurta lagu quudiyo dadkan ay jeebka ku shubteen. ninkan Fahad Maxamed Nuur isaga shakhsiyan waxaa loo malaynayaa lacag $5 milyan ah in uu qaatay. marka qofkii xogtiisa haya waxa la leeyahay FBI-da hala soo xiriiro taleefankan aad arkaysaan ama online-ka kala xiriiro safaaradda ama qunsuliyadda ugu dhow oo Mareykanku uu leeyahay. taliyaha FBI-da Kash Patel ayaa shalay qoraalkan bartiisa X ku soo qoray, waxaana xaqiijiyay in ninkan la yiraahdo Fahad Maxamed Nuur uu baxsad ahaa ilaa iyo sanadkii 2022, waxaana uu xaqiijiyay ilaa iyo markii madaxweyne Trump madaxweyne ku-xigeenkiisa JD Vance uu u xil saaray hogaaminta la dagaalanka musuqmaasuqa inay ku guuleysteen inay dib u soo celiyaan lacag gaaraysa ilaa iyo $13 bilyan oo markii hore dadka musuqmaasuqa gacantooda ku jirtay. waxaana uu xaqiijiyay in hadda dadaalkan ay sii wadi doonaan, isla markaana ay jiri doonaan dad kale oo la soo qabanayo iyo lacago kale
oo la soo celin doono. marka ninkan hadda Fahad Maxamed Nuur waxaa la duldhigay lacag kaaraysa $150,000 qofkii soo sheega halka uu ku dhuumaaleysanayo. arrintaasina haddii halkaasi aan kaga gudbo, waa maalintii saddexaad ayaa waxaa socda dagaalka mar kale dib u bilowday ee Mareykanka iyo Iiraan ka dhexeeya. saldhigga dhexe ee Mareykanka ee SATCOM waxay xaqiijiyeen in ilaa iyo 90 goobood oo militariga Iiraan ay leedahay in ay bartilmaameedsadeen oo ay ka mid yihiin hababka difaaca ee ciidamada Iiraan, sidoo kalena waxyaabaha dhinaca xeebaha u qaabilsan dhinaca basaasnimada oo surveillance-ga, sidoo kalena gantaalada iyo droniska halka ay ku kaydsadaan awoodii ciidamadooda badda, iyo sidoo kalena dhinaca logistika ee militariga. ilaa iyo 80 weerar oo kala duwan ayay ku qaadeen maalnimadii Talaadada ahayd. shalay oo Arbaco ahaydna 90 weerar oo kala duwan ayay ku qaadeen. ciidamada Mareykanku waxay bartilmaameedsanayeen dekadaha ku teedsan dhinaca marinka Hormuz, waxaana la sheegay inay ka mid yihiin meelaha Mareykanku uu weeraray Bushahar, Bandar Abbas, Abu Musa, Sirik, Jask, Iran Shah, Jabar Shah iyo sidoo kale Konarag. meelahaasi ayaa ka mid ah meelaha Mareykanku oo sida aadka ah u weeraray. Iiraan iyada nafsad ahaanteedu saldhigyada Mareykanku uu ku leeyahay Bahrain iyo Kuwait ayay si aad ah u duqeeyeen, waxaana Iiraan ay sheegtay inay bartilmaameedsadeen saldhigyadaasi. laakiin arrinta ugu weyn waxay tahay in dowladda Iiraan ay soo riday 30 ka mid ah diyaaradaha la yiraahdo MQ-9 ama US Reaper droneska, kuwaasi oo Mareykanku ay kula dagaalamayeen waxay ugu yeereen argagixisada bariga dhexe intii dagaaladii Ciraaq iyo Afghanistan ay socdeen. diyaaradahan waa diyaaradaha droneska, waxaana ciidamada cirka ee Mareykanka ay ku soo biireen sanadkii 2007 waxay ugu yeereen la dagaalanka argagixisada ayayna qayb ay ka ahayeen. diyaaradan waxaa la leeyahay warar kala duwan ayaa soo baxaya, halkii xabo $30 milyan ayay joogtaa, mararka qaarna 16 milyan ayaa la leeyahay. marka 30 ka mid ah haddii la soo riday, wararku waxay sheegayaan $113 bilyan in Mareykanka ay ka qasaartay labadii maalmood ee lasoo dhaafay oo dagaalkan Iiraan ay kula jiraan uu mar kale uu dib u bilaabmay. hadda marka wasaaradda gaashaandhiggu waxay ka fikiraysaa bal qaab kale oo ka raqiisan, diyaarado kale oo ka raqiisan inay ku dagaal tagto, maadaama Iiraan ay 30 ka mid ah 2 maalmood gudahood ay ku soo riday. shirkaddii samaynaysay diyaaradahan ay Iiraan ay soo riday oo la yiraahdo General Atomics sanadkii la soo dhaafay ayaa la xiray. qaybtii ugu dambeysay oo soo saaraana waxay ahayd 575 xabo. marka Mareykanka hadda 113 bilyan ayaa ka qasaartay oo 30kaasi diyaaradood oo la yiraahdo MQ-9 ama US Reaper droneska oo Iiraan ay ka soo riday. ugu dambeyntii arrinta la yaab kale waxay tahay madaxweyne Trump waxaan ognahay in magaalada Ankara uu kaga qayb galay shirkii isbahaysiga NATO. madaxweyne Trump waxa uu Turkiga ku tagay diyaaradii cusbayd ee $400 milyan joogta oo dowladda Ciraaq ee madaxweyne Trump ay siisay. diyaaradaasi markii la siiyay madaxweynaha waa in loo diyaariyaa diyaarad madaxweynuhu uu ku duuli karo. diyaaradda Air Force One oo madaxweynayaasha Mareykanka ay raacaan waa aqalka cad oo hawada ku jira. isgaarsiintii ayay leedahay, haddii gantaalo lagu soo tuuro waa iska difaaci kartaa. nuclear haddii uu dhaco sidoo kale diyaaradaasi waa ay duuli kartaa. shidaalka hawada ayaa lagu siiyaa, qayb jiifa ayay leedahay, qayb shirara ayay leedahay, qayb warbaahinta lagula hadla ayay leedahay. marka diyaaradda markii ay Qatar ay siisay madaxweyne Trump waxaa loo dhiibay wasaaradda gaashaandhigga si looga dhigo diyaarad ammaan ahaan madaxweynaha Mareykanka uu ku duuli karo. marka in muddo ah ayaa howshaasi ay socotay. madaxweyne Trump marka diyaaradan cusub waa kii soo bandhigay 19 bishii hore ee June oo yiri diyaaradii Air Force One waatan waa la sameeyay, waxay ku kala duwan yihiin dhinaca midabka. tii hore ee Air Force One blue iyo cadaan ayay ahayd, tanna guduud ayaa ku jira iyo weliba cadaan isku jira. marka meelo kala duwan oo Mareykanka gudihiisa ayaa madaxweynuhu u raacay, laakiin waxay ahayd shirkan Turkiga uu tagay isbahaysiga NATO markii ugu horeysay oo safar dibadda diyaaradan cusub oo madaxweyne Trump uu ku baxo. markii madaxweyne Trump uu baxayay, Iiraan xabad joojintii ayaa jirtay heshiiskii isfahamka. intii uu Turkiga joogay waa kii dagaalku uu dib u bilaabay. Turkiga iyo Iiraanna xuduud ayay leeyihiin. madaxweyne Trump markaa shalay mar uu shir jaraa'id qabtay iyo mar uu xogayaha guud isbahaysiga NATO uu la kulmaya, labada marba waxa uu yiri Iiraan qofka koobaad oo ay doonaysa inay disho oo ay bartilmaameedsanayso waa aniga. marka Trump wuxuu ka baqay maadaama Iiraan iyo Turkiga ay xuduud leeyihiin in Iiraan gantaal ay ku soo rido diyaaradan oo ammaan ahaan diyaaradan cusub aysan u diyaarsanayn in madaxweynuhu uu ku safri karo oo gantaalada aysan iska difaaci karin, isla markaana sidoo kale xitaa nuclearka
aysan iska difaaci karin haddii nuclear la isticmaalo marka laakiin madaxweyne Trump waa la weydiiyey shirkii jaraa'id ee ugu dambeeyay shalay Ankara uu ku qabtay markii shirka isbahaysiga NATO uu dhamaaday waxaa la yiri sababta diyaaradii aad ku timid ee cusbeed oo qadar ay ku siisay aadan ugu baxaynin oo diyaaradii hore Mareykanka inta laga soo kiciyay ay Turkiga timid maxay tahay marka madaxweyne Trump wuxuu yiri sidaad ogtihiin nolosha madaxweynaha Mareykanku waa qatar waxa uu yiri shaqadan waa shaqo aad u qatar Iiraanna qofka koobaad oo ay doonayso ayaan ahay laakiin sababta waxa uu yiri diyaaradii cusbeed waxaan u dirnay saldhigga ciidamada Mareykanku uu ku leeyahay Ingiriiska gaar ahaan Mendenhall si ciidamada Mareykanka iyo qoysaskoodu ay diyaaradan cusub gudaheeda ay u sii arkaan ilaa iyo dhowr wadan ayuu yiri laakiin Ingiriiska oo kaliya ayay tagtay meel kale ma aysan tagin sawirkan waxa la qaaday iyadoo airportka fadhisa Ingiriiska isla markaana ciidamada Mareykanka iyo qoysaskooda ay sawirkan ay ku galeen marka madaxweyne Trump waxa uu yiri ma ahan arrin ammaan darteed in ciidamada aan tusino diyaaradan cusub iyo qaabka loo sameeyay darteed ayaan Ingiriiska ugu dirnay laakiin dadka siyaasadda falanqeeya waxay leeyihiin arrintu sidaas ma ahan ammaanka madaxweynaha ayaa loo baqay sidaas ayaa diyaaradan cusub maadaama ammaan ahaan ay u diyaarsanayn in madaxweynuhu uu ku safro ayaa diyaaradan Ingiriiska loogu diray madaxweynuhuna tii hore oo iska dhigay ayaa Mareykanka ka baxday Turkiga tagtay ka qaaday madaxweynaha kadibna Ingiriiska geysay markii Ingiriiska geysayna diyaaradii cusbeyd oo Ingiriiska fadhisay ayuu soo raacay marka sidaas ayaa la leeyahay madaxweynuhu laakiin wuxuu leeyahay arrintu sidaas ma ahan haddaba waa kan madaxweyne Trump shirkii jaraa'id ee ugu dambeeyay oo shalay qabtay markii su'aashaasi la weydiiyay ma ammaan ahaan ayaa diyaaradda cusub u raaci waysay mise arrin kale ayaa jirta sidan ayuu madaxweyne Trump uu uga jawaabay Well, I speak about it a lot because you know the life of a president is very dangerous. It's 5.2%. It's a very dangerous profession. No, I'm number one on the kill list for Iran. They're lovely people. I'm number one. So I don't know. I can't tell you that, but I don't really care because I'm doing my job and I'm doing it, I hope, better than anybody's ever done it. It's flying to Europe to one of the big bases, 2 or 3 of the big bases where we can show it to the people. And we'll be going home by normal methods. But we have it going to Europe to a couple of bases, actually one in particular, but it's going to go to a couple of bases stop so the soldiers can see it because it's truly magnificent. waxaan idinka codsanayaa asxaabta maalmahan viewga aad ayuu u hooseeyaa janaalka waa lagu dhagan yahay inta aad ka baxdo ku soo laabo qaybta saajka isla markaana sidoo kale like noo saar si